ninkaana u jeedin gabadhaan ay qadka iska barteen kadib gurigeedii ku balamisay markii albaabka ka furtay waxay ku dhehaysaa maxaa way adiga saa'id u gaabantay isna waa kanahay uu mahad celina gaarigan intii aragtay waxay weydiinay gaarigaas adiga miyaa iska leh ha ku dhaha markii aragtay midkan inay u kala kacsan tahay u bixi u gacanta ku hayay ka qaadanay waxay ku dhehaysaa haddii aad rabtid inaan ku raaco way wadaysaa waxaan ay gelinaysaa maqaayadaha ugu qaalisan magaalka ku yaalo isna waa kanahay dalabkeeda ma ka diidayo oo ogolaana markii ay maqaayada yimaadaan taleefankeeda isku mashquulinay isiguna wuxuu weydiinay adiga xagee ku soo kortay waxay u sheegaysaa su'aalaha noocaas oo kale inay caajis yihiin iyaduna aysan rabin inay caajisto kadib maqaayadii waxaa imaanaya kuwa saaxiibadeeda waxay isku dayaysaa inay ka dhumato laakiin gabar saaxiibadeeda kamid ah arkayso meeshii ay ku dhuumanaysa intay ka soo baxday saaxiibadeed waxay weydiinay meesha maxaa ka sameynay waxay ugu jawaabaysaa meeshan arrimo ganacsiya oo imaada ninkan u jeedina booskayga waaye intaas kadib meeshii waxay isku baranayaan ninkan ay saaxiibadeed qaraabada yihiin isbarasho kadib waxay ku dhehaysaa isiisi kuwa ka daba imaana marka arrimaha ganacsiga soo dhameystay markii uu baxa midkana wuxuu weydiinaa arrimaha horteeda ku sameynaysa mujeedid miya waxay ku dhehaysaa aniga waxaan u baahanahay nin kala kacsan oo shaafta heesta oo weliba dheer laakiin adigan aan hadda kula hadlayo intii aan soo sheegaba maba tihid marka sidee macquul ku tahay qof anigoo kale ah inuu banaanka u soo raaco qof adigoo kale iyadoo qaylinaysana kor waxay u dhehaysaa adiga waa gaaban tahay asna waa kana lacagtii ay cuneen intuu miiska saaro wuxuu ku dhaha waxaan kuu rajaynaa qofka raadinaysid inaa hesho meeshan uu isaga taga markii uu taga saaxiibadeed oo meeshan kusii sugayay kusoo biire isla maalintii xigtay midkii ay saaxiibadeed qaraabada ahaayeen guriga ku balamisay way soo baxayaan iyadoo u malaysa inuu midkan yahay midkii ay raadinaysay laakiin iyagoo sheekadooda wato midkan wuxuu bilaabaa inuu ku mashquulo gabdhihii kale maqaayada jooga habeenada kamid ay intay soo baxday gurigiisa uu imaanay waxayna arkaysaa inuu gabar kale la joogo midkii hore maadaama ay gaabni uga tagtay midkan waxay uga tegay khiyaano laakiin sidaas maysan ku quusan oo maalin kasta waxay raadinaysaa nin iyada ku habboon waqti badan waxay ku bixisay inay niman kala duwan maqaayad isku raacaan maalinay midkan maqaayad isku raacayaan waa kuwana iyagoo labadooda isla fadhiyaan laakiin midkan wuxuu u dhexeeyaa mar uu taleefankiisa ku mashquulsan yahay iyo mar uu ku mashquulsan yahay gabdhihii kale maqaayada joogay waxay weydiinay ma ii jeedid miya aniga meeshaan joogay intuu soo istaago wuxuu ku dhahaa macquul maahan arrintan waxay u egtahay mid aan sii socon doonin markii uu tegay waa tanaa keligeed iyadoo meesha fadhiso xooga ay meesha fadhisa waxaa u imaanaya ninkii ay maalin dhawata gaabnimada ku nicaysay waxay ku dhehaysaa ma soo koobi kari intii jeer aan isku dayay in aan helo ninkii aniga igu habboonaa wuxuu weydiinaa horta adiga waxaad ii sheegtaa ninka aan raadinaysa iyo sida uu egyahay waxay ku dhehaysaa sidaa hore kugu sheegaba waxaa raadinaa nin dheer oo kala kacsan oo mushaar badan qaato wuxuu ku dhahaa intaas aad soo sheegtay haddii aad nin ka raadinaysa waa huba ugu dambayn iyo jaway kusoo dhammaan doonaan waxay taagan tahay kelinimada caadi waaye xitaa adiga markii akaatiga keligaa soo matid hadda faraanti uu wato intoo tuso wuxuu u sheegaa inuu isagu mar hore guursaday mar labaad waxay taagan tahay waa huba middaa guursatay waa foolxumad iyo socoto laakiin isla waqtigaas ay sheekada wateen waxaa imaanaya ninkan xaaskiisa iyaduna way yaabay markay aragto qofta oo ninkan guursaday waxay ku dhehaysaa haddii aad su'aal ku weydiiyo qoftaas u jeedid xaaskaaga miya haaho ku dhaha waa saxan tahay xoogaa waanana uu u raacinaa kadib meeshii uu isaga tega muuqaalkan intaasoo ku ekaaya hadda halkaasoo gaarta leegnosa